kala maqnaayeen soo aniga xub iskuma keenin deeq ciyaalka wuu dhalay wuuna soo booqanayaa maxaa soo aniga xub iskuma keenin haye maxay tahay dee runta sheegad maadaama runta sheegtay soo anigu ciyaalkiisii inuu la hadlo soo aniga maaha naagta ka dhigtay soo aniga maaha naagta ciyaalkiisii ku soo celisay intaasoo san assalaamu calaykum dhiin soo aniga maaha naag kale maad haye soo aniga maaha aniga miyaata layga qarinay Sweden la aadi loo baxsanay soo aniga maaha ninka intaasoo san ciyaalkiisii assalaamu calaykum u qorino aniga soo maaha ta u keentay soo aniga soo maaha why are Sweden to Maraykan maxaa keenay sheekhow adiga runta sheeg hadday kalena in adeer anu waan kuu sheegay haddeerna ma fahantid darwiisho iyo baleen ku aamino in adeer ka cariyo maqal horta anu waxaan kuu sheegaa darwiisho anu marxuumadiina inta ay keenatiin aniga xabaalshi lagu aaseemay ma fahantay nagu kala kaxay sheekh okay hubiya horta dhigeyso aniga soo aniga ma ciyaalkaagi la hadal qofka ka iriso aniga maaha haye maqal waaye dhigeyso anigu wax walba waan dareemayaa gabadhnimadan dareemaya wax badan baa jira war gobernimada lagu dhageyso imaqal aniga inaad nafistid aad leefka ku jirtid wax walba aynu halkaa ku wada aniga deeq geesood baa loo wasaara kuli aniga xubbiya meeshan ku fadhida le marxuumiintana aniga guriga lagu xoreeyo ama xabaashi lagu aasimay ma fahamtay nin intaasoo san ciyaalkiisi assalaamu calaykum ka dhihin naagtii isku keentaan ahay kartidaana aniga lay ma fahamtay ilmihiisii naagtii oo ka tiri la hadal aabanimada dareensiisay waa aniga maxaa qaldan aniga la igu dul ilbaxaya miya aniga ma la igu dul ilbaxaya maxaa ka qaldan xubbiye xaalka waay Maraykan aaday Sweden laga arkay maxay tahay war aabihii xubbiye xaalka darwiisho waan kugu tufaya ma fahantay anu waxa ay igu tufina xaalka deji aniga hadda igu tufti waa caadi waa qaadan xaalka deji darwiisho xaalka deji aniga waxa ahay gabadhii baan ahay aabiyo ciyaalkii uu ka fogaaday intaasoo san assalaamu calaykum xataa u qori oo xataa saa u firi naagtii u keentaan ahay waraa kartida aniga iskale ma fahantay hooyanimadan dareemayo ayaa ilmihiisii uu ku celiyay waraa nin raga ka dhigay oo maanta ciyaalkiisii ka dhigay horta xubbiyan kaa yar dhex kale horta haddaa aabihii iyo aniga isku keenay amiire aniga ka dhigay ilmihiisii inuu la hadlo aniga ka dhigay naagta horta wax wanaagsan baad samaysay qaali ma garatay aniga bal igu sheegay oo khiyaano layla soo galaya horta haddaa saa samaysay dhegeyso asmaa yar sug 1 minute walaal siistare horta haddaa saa samaysay waa bal yar sugdeed halgamaa darwiish maxaa qaldan walaal waxa ma jira amiire horta yar sugde aan hadle ama jirin ama jirtaan waxba ma samaynayna labada anaga inanka inantuba waa laba qof walaalay aad asxaab isugu dhawaanahay dhegeyso muxuu ahaa xubbiye horta qaali haddaa aabaha iyo caruurta midaysay hawl fiican qabatay laakiin waxay muhiimadu in adigana lagu sheego maadaama markii horeba ka shaqaysay wanaagooda isku soo dhaweyntooda caruurta iyo aabaha aan muddada badan wada hadlin ina lagu sheego lagala tashadun bay ahayd inta haday dhici weydana de gadaala laga yaaba inay amiire aniga isku keenay wallahi oo bilaa hal maali assalaamu calaykum soo anigu iyo bal samirna ku yar darban ku oran la qaali laakiin intaas ii garan waayay intuu ii garan waayay xubbiye amiire maanta ma darwiish intuu wuxuu kale ilmahaygii bay ka xuntaa inaa is aragtay uma qal walaal fiiriniyo ma maqlaysa asmaa daan hadalka ka dhigay balaasmana u daa halgamaayo uu hadalka ka dhamo asmaa maya inaan laguma gogosanay halka leef baan xidhayaaba maxaad xidhaysaa cidima ma kala kaxaynaysa maxaa khaldan darwiisha cidima kala kaxaynaysa dhisan yaala walaa cidna ma kala kaxaynaysa de maxaa khaldan hadaba inantan ka wanaagaygiiba igu soo noqday meegade aan qaadanay anuka nafteen muud gal walaal maxaad u qaadanaysaa ma inaan reer dhisan dumisaan war cidba ma duminaysa muud gal qofna ma duminayse emailkaygii baa la jabsanay emailkayga idegeyso waxbaan kuu sheegaa darwiisho hoostaasaa fadhiisanaysa waa dhegeysanaysaa ku annaga dhegeyso horta dadkan horta yar sug dadkan aan la hadle aniga amiir ahaan inankan iyo inantan aad baan labadoodaba isku dhowni dad walaalaanay annagu iskuma dirayno
kamana dhex shaqayno waxaanan jecelay wada jirkooda iyo wada joogooda dadka sida kale u arkaya wax kale ka shaqaynaya xanuunsanaya ilaahay caafiyo intana sheekadu kuma soo dhammaanayso daweynaynu wada ogaan doonaa asxaabta kale ay ku socdo walaa annagu cidna ma kala dirayno dalaamada jecelay Asma ku soo adig labadan qof waa inaa ogaatiin laba qof oo horta isqabtay inay tahay furitaanka iyo qabitaankan ilaah baa keena laakiin gabadhan walaasheen ah oo hooyada ah ma garanaysaa asmaa waxbaa khaladay qabitaanka ilaahay baa keena furitaankana xubi baa keenta furitaankana xubi baa keenta waa runtaa waa sidaa gabadha maasha Allah siday sheegaysa ma garanaysaa wiilkan walaalkeen ah familkiisa bay isku keentay ilmo uusan la hadli jirin bay maxaa isku dayday ma garanaysaa dadaal weyn u gashay inay ma garanaysaa ay isla hadal siiso maxaa ay ka shaqeyso waa wax wanaagsan weeyaan ma garanaysaa aabayaasha badanaa Soomaalida ma dhahay deeq kaligood ba niman badan oo waxa jira ilmo intay dhalaan ma garanaysaa ka dhaqaaqa oo dibna u soo fiirin marka maasha Allah taas horta adigay agtaada aadaysaa ajri xasnaan ilaah buu adiga ka siinaya taasi waa taa xubiyay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo abaayo kow markaad adiga iyo ma garanaysaa ii sheegay deeq markuu uu guurkana ma ahna markuu baxayay uu aadayay ma garanaysaa Soomaaliya dadka dhan buu dhahayo meesha buu la taagnaa uu dhahayo Soomaaliya baa aadaya waan baxaya Sweden baa aadaya soo markaasba wax ma qaldaneen oo laba sadan hadda maxaa isbedelayo ma garanaysaa ii sheegay waxa isbedelo gaarka waa maxay qasab waad ogeedaa maybe laga yaabaa laakiin okay dhageyso intuu ku lahaa markaas asmaa wuxuu dhahayay saan ognahay wuxuu dhahayay Soomaaliya sidaan ognahay ma ahayn intuu ku dhahay Sweden ba u socdaa taasaan ka maya Sweden wallahi horta Sweden ma aanan maqlin laakiin saan aniga aan garanayo wuxuu oranayay Soomaaliya muqdishaan maqlay Sweden aduma maqasho waliga maya Sweden maqlin laakiin ma Sweden wuxuu dhahay Soomaaliya muqdishaan aadaya soo marka adiga taasi waa ogeeyaan meesha laga keenanaha aadodi anaka ma war ninka isagoo 40 jiro shalay toleeyin dimaana dhalaan ma dhalin isagoo taala taas haya hal marisi marka muqdisho inuu aadayo waa ogeed soo maahan xubiyay waad ogeed sax muqdisho inuu aadayo no wuxuu iga yiri ma aadayo okay ku soco qaaliye horta sister stage qofka bila aadanka go'aanka iskala ma fahantay xubiyay soo aadi waxaad leedahay bis inaad la xisaabtantid berito markuu kula soo hadlo horta haddii aadna maanta meel aadna ku ogin oo aaday ninkaagii waxaad samayn kartaa kaliya inaad sugteed oo jaaniskaaga ku sugteed oo tiraahda dee adeero adi aniga iskumaana ogeyn in aad Sweden aadide adi aniga waxaan isku ogeyn in aadid Mareykanka haddii ay Mareykanka Sweden isku bedeshana dee waa sheeko cusub ma fahmaysaa soo familada dadka Soomaalidana waxa aad familada ka qarsanaysiin joojiye ragow dumar iyo ragow waxa aad kala qarsanaysiin joojiye wax la iskaga daba imaanayo oo wax guryihiina ku dudumayo oo waxa idin fiicnaynin sababtoo family markii la yahay iyo markii la sukaansanayo way kala dugan tahay markaad family tahay waa inaad qofkaaga la wadaagi kartid meesha aad aadayso haddaynayn berito xumaan bay isku bedelaysaa ma fahmaysaa soo waxaan ku leeyahay marka xubiye go'aanka adiga askal aan horta gurigaaga iska dudumi ma ku dhahay abaa gurigaaga waa gurigeyga kaleeto gabar walaashay aad tahay laakiin waxaan ku leeyahay ha uga kacanin haddii uu maanta mataqaanaa ku daba mareeyay oo meelaadna ogeynin oo aaday saaxiib kala xisaabtam haddii aad maanta kala xisaabtamina berri middaa mid ka xunaa kugu imaanayso ma fahmaysaa laakiin anigu ya ma dhamaysanin weliya soo deeqgeysoodna waxaan leeyahay islaantaada dee in adeero inaad khanyaantid oo dee ilmahaaga iyo carruurtaada hore aad soo salaantid damay ahayn haddaad soo salaamaysa xataa inaan islaantaada cusub aa u sheegatid oo tiraahdid dee walaaley dee carruurtii iyo islaantii horeon kala tagnay baan soo booqanayaa soo uma malaynaya inaad islaantaada inay kuu diidi laheed sababtoo sidii hadda ay xubi sheegaysaba iidaa isku keentay soo carruurtiaan soo booqanayaa kaamii diideen waa dhammaysta xubi horta aniga gurigana leedihiin gurigaagi iska dhiso gurigaagi hadumin gurigaagi maxay noqo anigu gurigana ininku arkaysina anigu arkeen muxuu yahay ma ilaa sheey kara gurigan anigu ma u jeedo gurigan ma u jeedo sababta guriga dhiso guriga maxay samayso ma jiro nin hadduu mar saablabo maalin kastana saasuu kana maalinta saddexaadna saasuu kana infaanti markaas nin inta loo soo fadhiisto maanta saasuu keenay la sugay bari intuu saa keenayo
no ma jiro mar hadduu saa keeno in adiguna saa keentid waaye ma fahantay waa la kala tashdaa dhinac sidii badan marka dhinac isleedahay waa kala tashtana waxay inaad dulqaadka Soomaalidu waxay ku no mamahdaa dulqaad badan waa dulqaad loo ma jiro dulqaaday nin looma dulqaato nin looma dulqaato hello waye kayna ma fadhiyo aw istaa bal waqti siiyaan ku dhihi lahaa aniga ahaan war wallaahi aabihii waqtigiisa wasugnaade aniga waxaan kuu sheegaa aniga Ay. asma waxaan kuu sheegay waa laygu dultuntay beri baa lahaa nin waqti sii ma fahantay waqti sii beri buu isbedelayaa ninkii oo saa u socday maanta waqti sii saa la beri tore isagoo saa u socda u yimidaa ma fahantay waqti sii saa u laa isagoo orday u yimidaa waqti sii saa u laa markuu guriga ka baxo baxsadaa waaya ma fahantay anu waqti sii iyo wax sii iyo anu waxaan garanayaa nin haddaan ku arko inuu rabo inuu baxo aniga nolosheeda inaan sii wato ma fahantay si fiican aniga nolosheeda inaan sii wataan yaqaana laakiin waqti sii haku saa madaxa kaa waso gabadhan xubbiyaa la yidhaha gabadha lagu dultunto oo lasoo baray waa wax kasta waqti sii iyo waqti sii ma garanayso ma fahanteen asxaabe guriyaa dhisanaysaa ma jiro aniga ninkaas wallahi ubilo waxaan isku samaynay managa ma dhaxeeyo laakiin ninkii hadduu isku bedelay sidaas ah oo aniga u keenay ciyaalkiisii intaasoo sano assalaamu calaykum ma ka dhihin anaa u keenay anigaan isku keenay waana ku faraxsaya maanta waxaan anigu sameeyey naxariistaan anigu sameeyey oo iri isku keen hadday xumaan igu noqoton aniga isku keento waan qaadanaya madaxaan saaranaya naxariista badan marmar waa lagu dhaawacma ma fahantay aniga ayaa isku keenay dembigaasoo dhan anaa waa galay runta naxariista badan horta ma wanaagsana waa saa Wallahi sheegtay waa waa sax qofka laakiin ma garanaysa abaayo ani wallahi waxaan ku dhihi lahaa waqti iska sii aragt xaalka sidee anu noqoto waqti ma sii garanaysaa iska xaalka samir iyo bal filinkaas u aamusaan ku odhan lahaa qofka asagaa wejigiisa saxdaa soo baxaaya ma garatay qof markaa u aamusidoo ma garanaysa aad dhahdid bal xaalka bal aragno wallahi wejigiisa saxdaa asaa soo baxaaya ma fahanta marka dee guur cusubna wuu yahay wallaahi burburkiisana waa foolxumo annaga dhan waa ka wada xunnahnay laakiin waxaan rajaynaynaa xaalka inay tan ka qurux badnaato ma garanaysaa ii sheegay oo aad isfahan inuu meesha ku asmaay yimaado idhegeyso asmaay inta qof bini aadan la jeclaan lahaa ninkaas waan jeclaaday waan si jeclaaday fiican waana u samray wax kasta sababtiisa iska daayay waan iska dhaafay life inaan soo gala iska dhaafay waxa iri gurigaa dhaqo waan is asturay anu waxaa ahaa naag iska sidana ahaa laakiin sababtiisa isku asturay waan isku bedelay xubbidii hore lagu garanay waan iska bedelay gabar fiican oo nugu u noqon lahaa ma fahanti jecel sii baa lahaa hadduu saa keeno de aniguna saasaan keenay haddaa sii saaxib waqti sii iyo maxay sii iyo intuu kugu dul kaadinay sug iyo kaadidii way dhammaatay xaarkiisii sug iyo balaayadaas anu ma karay ma fahanteen anigu ma karay kubdaa lay dhahaa markaas waan siiyey uu ku garan waayey qofka kubadda waa loo dhibaa hadduu ku ciyaari garan waayona waa laga qaataa saaxiib mid ku ciyaarayaa loo geeyaa maxaa kaa khaldan kubadda waa lagu dhiibaya waa lagugu tijaabinaya waa ku ciyaaraysa haddaas maanta lisa u wareegaysid intaan kaa qaadan ku kala ogeynaya taasay kuleedaa haya ma isku dayday dadka ku dhow inaad la hadashid oo aad ma garanaysaa oo xaalka bal aad fiirisid oo ma garanaysaa geesaha aad fiirisid ma isku dayday dadka ku dhow ah noqda qabiilkiisiyo balaayadiisiyo dadkiisiyo dadkii dhintay dadkii nool inaan kala saaro maxaa iga galan dadkiisi maan soo raadiyaa haddana asmaay adiga waxaa wataayba aniga kula yaaban dadkiisi ma isku dayday kula maya dadka ku dhow waxaan ka wadaa friendskii asxaabtiisa dadka close ku ah uu la sheekaysto ma garanaysaa waqti lahaa idegeyso iyaka isoo wacay ma ogtahay saaka asmaay subaxii waa laisoo wacay waxaa iri maxaa khaldan oo maxaa dhacay ma fahantay tan alle asxaabtiisii isaga u dhawaa isoo wacay waxa iga yidhahda xubbiyey ninkii naagtiisii hore hoos buu la heshiiyey saasuu u aaday yaa walaalay dee anaku waxaan samayno ma garanayno yaa laakiin walaalay iska samir de aniga dilaacay de aabbahayo samirkiiniiba wasaaniga yiri maxaa niyahe qof u dhow iyo balaayada intaa raraasanayo
oo kolba qof ku lalaadayo intaas waqtigaas nin dhan haddaan ku lumi jecel waan soo qabsiyo waan keensaday maxaa kaa khaldan intaa waqti iyo saxaabtiisa iyo reerkiisa iyo kuwii dhintay kuwii kara waniyo haddaa karaysa furiinkayga isoo dir haddaa karaynin aday ku taala iska sido cumrigaaga ku dhammeesha ku sido aniga يعني حبي ما waqtigaa حكودا kugu lumaynayo iyo waqtigaa دقيسو furiinkaaga iyo baleedaada kugu raadinayo anu nin kale intaan ku shuukaansadaa reerka la dhisi lahaa maxaa kaa khaldan حبي يعني ما dadkii idin dhex galayay inay yani waxaan dhacay ka hadlaan bay ayaa sidaa haddana hadalka kuugu dhigay oh my god waa ha ha rufyaaniin bee ha waxay dhaheen hoosoos baa laga heshiiyey naagtiisii hoosoos ula ma heshiiyey ogtihid waaw rufyaan weeyaan dadkaas maya kuwaas wallahi guriga bay rabaa inay kaa dumiyaan saatiri aawi daahir cali soo xaasid baa seer jira garaya dee daahir cali saa loo seer garayo isagaa ku daahir jira cali soo usheef maxaa lahaa waa loo sheergarayaan asmaa u sheergaree adigu marka isagaa ku wallaahi jira walaalay macaanay wallaahi ilaahay khayr horta ha ka horta dhigo deeq laakiin aniga daahir cali soo buu iga jecel yahay ma fahantay haw sidee sababne daahir cali soo ha u tegin dankiiraad ugu tegayaa la-aantii ma noolaan karo anu asmay marmar daahir waxaa ku sheergaree way adkaatay bee ninkan daahir cali soo muu qaamso anigu way qaamar mar waa ku wareer anigu war ninkaas iska daa dankiiraad uu dhimanaya maan maday mindhaa kow markaa isbaranayseen sidaan sheegtay kow nin markaa nin jecel isbaranayseen weligay ma dhanka amuu arkin kaa soo maray hadde ya uu isleeyahay uu xubi waxaad maxaa la yidhahdaa dhanka waxaa iska soo barateen dhanka daahir hoo waxaas ma isleeyaho alla adiga wax ma ogta alla miskiin baa tahay waxaad soo qabataa sihaamgeenye inantay ugu qoranto wallahi miskiin baa tahay asmaa xubiyey madaxa xanuunay guys intaasaa iga baxaysa I don't know waxaan sameeyo xubiyey sihaamgeenye soo qaba qaali deeq geyso xataa ma ku arki karo niyo haddaa i daawanaysid wejigaagii mar labaad ma arki karo khalaas idaasay wejigaagii mar labaad ma aniga horta kow waxaan ka naxay fideoga uu meesha soo dhigu dhahayo waa markiina sukaaya dambeysay waa markii sidaan ahayd waxaan marka qaar bini aadan baa iska ahayo waa wuu isku og yahay ma og tahay wuu isku og yahay dee meeshuu u socdo uu og yahay anu daacad baan ahaa iska fadhiya markaasuu le xubbi maanta isku kaa dambeysa you know meesha u socotida og tahay that's why waxaa ii leeda maanta igu kaa dambeysa sihaam soo qaba qaali aniga naag socod laga cabsiinayo mayaho ma fahamteen saxaabay naag si fiican lagu cabsiinayo mayaho quruxdaydii yaa laga yaabaya ma fahantay wallahi oo bila aniga horta waxaan ismooday I don't know waxaan marxuun u soo xareysta qof bini aadan oo caadi aan iska soo xareysanaa imika kadib oo iga ma wiilka walaalkeena marxuun ma ahan waa ninka maasha Allah bini aadanko dhan baa saa dadka commentigo dhan baa saa leh aniga ma saa way iska leeyihiin dee waa ku kacsan yihiin daaroodka asxaabay maanay ma u garatay bixiyey laalka saa iska kacsan aniga xabaalaha dadka marxuumiinta lagu aasimayo waxaas ma fiicne kor uga bax qaaliya waxaas waa dee waa iska waa iska tiktok weeyaan dhegeysta nin naagtiisa marxuunka ma ahan ma garatay wallahi inuusan marxuun agtaada ka ahayn ma garanaysaa walaalay macaanay wallaahi horta dadka markay kala tagaan horta waa la sheegay nin waxaa la yidhi wuxuu ninkuu yahay markuu kula joogo ma garatay markuu kula joogo ninkaaga yahay markuu kaa tagane dee waa qof kale ma garatay soomaalidaad tiraahda ummadda adduunka dhanna saas way yidhaahdaan asma aniga khiyaanada adduunka u necbiya ma fahantay ninkaas wuxuu wax khiyaano waaye wax fool xun waaye wax aal qaadan karin waaye ma fahantay waxaan maanta u dul qaadan karin waaye waxaa madaxa intaas igu xanuunaya waaye ma fahantay markaas hoos dhamme iyo dusha ka dhamme iyo luuqa isla gala iyo balaayisi ani waxaan ku oran lahaa tallaabo weekendiga isqabanayna insha Allah waa wada tallaabaha asmay tallaabaha qaadina koran horta bal wax kasta hortaada iman doonaa dee kolley hadday sii socda iska dhammaanayaanba kolley wax kasta sidiisay noqon doona soona waxaan koran lahaa ha degdegin ma iska kiintuura ininka maxaa tallaabaha qaadin iyo ha degdegin iyo luuqa iyo balaadana daba wadi maxay tahay inta ii wadid waa idin jecelnahanay ilaah baan ku dhaartay dadka social media iska guursaday naaheedha aniga waa naxsanahay mawaalantaa social media nin ku jira ma guursan karo calooshaba ay xanuunaysa ma garatay waxaan ka baqaa publicityga iyo ma garanaysaa meelaha so marka naag waxaa tahay ma garanaysaa maasha Allah ahoo
khatar ah baa tahay adiga laguma gaari karo asagana sidoo kale labo isku soo baxayaa tihiin ma fahantay laakiin ummad idinka dhex faa'iidaysanaysa abaay macaan way buuxaan been kuma sheegaya walaahi dadku waxay jecel yihiin in laisku diro ma garanaysaa labada qof oo social media ku jiro in hadday isguursadaana la kala diro balaayo su'aalan ku weydiinaya haye damay dhegeysta anu meesha asmaa dhegeysto han damay sug asmaa okay waxa aragtay iyada u soo dirayso isagoo qaawan si fiican waxa arkaysaa isagoo isku sawiray meeshiisii u dirayo naagta oo ka leeyo naasaagii macaan waaye oh my god oo ninkaas kaa baxay oo jarmal aaday maxaa samayn lahayd adigu dib muusan iigu soo laabteen dee bacdiisa banaan ku dhigi lahaa haddaan ku tusano wax kasta haddaan ku tusano indhahaaga haddaan ku saarno miiseedka iyo naasaagu macaan yahay jirkiisii u sawirayo iyada u sawirto wax kasta haddaan ku tusano maxaa nambarkeeda haddaan meesha soo dhigano ma iyadoo qaawan way soo dirtay marka iyadoo qaawan maxaa samayn lahayd adigu dhiiga baa hadda yaa 300 buu garaaci lahaa wallahi billahi asma imika luuqa kugu soo diri karaa no wow aan luuqa kugu soo diri karaa oo telefoonka saa video uga qaatay maxaa samayn lahayd okay iska daaba meesha iyadu joogto isla markuu aadano يعني وشكله ويدان تاي meel kalaan u socda intuu ka yar isla meeshii markuu aadna ciyaalku ugu tagay ciyaalka intaasoo sana lama soo heli assalaamu calaykum kama dhihin aniga isku keenay oo la hadal ka yiri mida kale hadduu ciyaalka dhay su-aalan ku yidhi ciyaal uu ka dhalay jidh cusub ma jidh cusub bay samaysatay yani waa jidhkii hore u yaqaanay soo maaha yani maxaa isbedelay ha maxaa isbedelay xubiyay maxaa isbedelay nin inaag way kala tagaan ilaa horey dadkan isku arkeene wow exactly dadku way kala tagaan waa yaabanay wallahi bal asxaabta commentigeena maqlayaan telefoon ayada soo galeen asma ninkan kala tagnay oo riidi jidhkaygu u arkay munaasamay soo samaysatay wallahi waa cilmi kale ya maya wax weeye ma garanaysaa aniga waxa madaxa xanuujiyo oo aniga madaxa iga qabsaday asma ka daawo gabare no here please abaya maya oo ku baryaaya please maya nin jirkiisii naagu diray isla meeshii aaday adoo maxaa ka sugaysa asma aniga gurigana leedii dis waa maxay tahay de gurigana aan leedahay adiga ii dhis aniga gurigeen dhisa waa runta oh my god hooyo dhisan gabar dhisan qalbiga ka dhisan meel walba ka dhisan ayaa guri dhista may waa xanuun laakiin la bahdilaayo oo naaga kaleeto sawiro loo dirdirayo video abaya please don't do it waa ku baryaa naakal u tago isla meesha joogto aad ana nolol ma ii yaala saxaabe no ha sameyn waa ku baryayaa wow please videogaas yuna gacantaada ka bixin xubiyey waa gabare say kastaba ha u dhacdee waa gabar asagana waa wiil walaalkaa ah kuu hoyday oo ma garanaysaa nolol wadaagteen baa tihiin banaanka ha soo dhigin iska daa ma garanaysaa sidii haddee ma garanaysaa diinta islaamka wax walba ku waafaqday bay wax walba noqonaysaa mar walbeetana adiga naftaada kow ka dhig cunugtaada kow ka dhig ninna asaa mar walba imaanaya yes gabadhaa quruxda badan baa tahay nin la-aan kugu dhaceyso wax weeye muhiimadda waxay tahay nin la-aan ma noqonaysid horta kale iyo waxaas rumooday oo leeyahay naagaha gurigaha looga tago raggu ha soo raaxaystaan oo rumoodaysi no aniga naag oon guriga intaa lagaga tago laygu dul soo raaxaysana ma aha runtaa nin sheego aniga naag laygu ciyaarayo ma aha anu doqonnimadu meesha igama gaadhin ma fahantay anigu indhahayga ku arkaayo oo dhagahayga ku maqlaayo naag lagu ciyaaray miyaho anigu bani ma sheegayo ma fahantay aniga intaa laygu soo ciyaaray waa laygu soo ciyaaray intaa laygu soo ciyaari karo waa la igu soo ciyaaray ragga inta awood leeyihiin waa laygu soo ciyaaray laakiin inta inka badan xubbiyaa lagu ciyaarayaa ma dhacayso beni ma sheega ma dhacayso khiyaanaduna wax iska jiro ma fahanteen laakiin siay qabtaa tan aniga camal
waxa ka daran mar kastaba mid ka daran bay imida ha ila yaabeen calafka ininka nii hagaagay ayaa aniga ii hagaagi waaye calafka ininka nii hagaagay ayaa aniga ii hagaagi waaye wax kale maaha ma fahanteen so waxa ilaahay ka imida waaye ma fahanteen والله وانت جاي سكستو gurigaaga dhaqo nolol samaysan kari waay waxaas aniga awoodeedi ma ilaahay gacantiisa taala ma fahantay laakiin dhax dhigay aniga ma hagaagin bani ma sheegayo so runtii xanuun waayo bani ma sheegayo bis maanta laga bilaabo aniga wax laygama arki maayo ma fahanteen like murugo iyo waxaasno ana hal mar baan ka meelma qof bini aadana hadda aragtid oo jeclaatid oo daacad u ahaatid oo qofkaas khiyaaniyo bilaay ku aragtid ana hal mar baan ka marma ma fahanteen aniga xana iguma horeeyo ma fahanteen xanuun iyo khiyaano maanta iguma horeeyo waxaan usoo bartay guys xanuun iyo khiyaano da aragtid ma usoo dhashay aniga waa u dhashay ma fahanteen waxba uma arko like wax caadiya u arkaa laakiin marmar maskaxdayda gacta ma qaadanayso maskaxdayda qaadan weysay wax kastaan sameeyay hadduu qaadan kari waayo ku fikiray waan dul qaadan kari waaye waa arkay khaas ahaan markaan sii daawado oo naagta waxay isku soo dareen inuu jirkiisii usawiro u diray iyadana usoo dartay oo kaliya naasahaagii u qurux badan yahay qurux waaye maxaas waaye waxaas oo dhan indhahay kusoo arkay oo kasoo dubtay snaabkeeni soo gelina fahanteen so waxaasoo dhan marka arkay wallaahi alcadiim like noloshii shalay tore igu soo dhacday iyo maanta ta igu soo dhacday isla meeshii la taagay ma fahantay meelna kagama dhaqaaqin inuu ilaahay baa meeshan ii qoray mar kastaba inaa meeshan ku qaato mar kastaba meesha inaa ku qaato aniga ilaahay ii qoray ma fahantay iminkan waxba uma arko awooddaasna waa leeyahay oo ku qaadanayo oo ku xamili karo oo inaan waxba u arkin oo noloshayda hore ilaa usii soconayso laakiin bani ma sheeg waan daalay runtii khiyaanan ka daalay alxamdulillah maanta inaan uurku yeelan oo ilmo ku qaadin ilaahay baa maad iskale ma fahantay waan ku faraxsanahay runtii laakiin nin dambe ma aaminayo qof dambe ma aamina kii hora kalaa iska meedho wax kasta ka meedho nolol sameyso xubiye dadkoo dhan oo ila yaabanin shalay baasaa lagu galay saaha sameyn in soomaali weji male waxaasoo dhan ka diiday no